halkastoo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkan kooban oo aanu ku eegi doonno haddii allaha yidhaahdo arrin aad iyo aad u foolxun oo ka dhacday galbeedka magaalada london oo galaafatay nin dhallinyaro ah naftiisa oo la ohan jiray xasan suufi cusmaan cabdilaahi oo 23 jir da'diisu ay ku dhoweyd ayaa 23kii bishii sagaalaad ee 2019 lagu dilay magaalada london. dhacdadaas siday u dhacday foosha xun ayaa waxaan ka waraystay hooyadii dhashay iyo weliba hooyadii wiilka wax dilay dhashay oo iyadu igaga warramaysa siday arrimahan u ogaadeen iyo saamaynta ay noloshooda ku yeesheen. waa markii ugu horreysay ee hooyooyinkaanu ay kulmaan ayagoo ku kulmay dhibaatada labadoodaba soo gaartay iyo sidii loo badbaadin lahaa da'yarta kale ee magaalada london iyo dunida daafeheeda isku laynaysa. haddaba marka hore waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo Xaawo Taako oo ah iyadu hooyo Soomaaliyeed oo dhashay wiil la yiraahdo magaciisa Samantar oo iminka xiran maxkamadna sugaya ahna wiilka loo haysto inuu dilay Xasan Yare. waxaana wax ka weydiinaya haddii Ilaahay yiraahdo siday marka hore ku ogaatay dhibaatadan dhacday iyo xaaladdu siday tahay. waxaa wax lagu farxaa oo idiin soo hormarinayaa in ay Xaawo booliiska ay ku dacwaysay si wiilkeeda loo xiro maadaama uu dhiig Soomaaliyeed gacantiisa uu ku daadiyay. waa qiso cajaa'ib leh oo hore iyadoo kale aysan u dhicinin. Xaawo waxay ka mid ahaan jirtay marka hore ciidamadii hore ee qaranka Soomaaliya. laba xidigle ayay ka ahaan jirtay ciidanka qaranka Soomaaliya militariga. markii dambena waxay ku biirtay booliiska Soomaaliya bari Soomaadkii. Xaawo waxaan kaaga mahadcelinayaa inaad naga aqbashay inaad nala hadashid iyo aad nooga warantid wixii dhacay xilli ay weliba aaskii weli uusan dhicinin maxkamaddii aysan dhicinin waxyaalo fara badan annagoo xiirinayna. bal waxaad iiga warantaa marka hore wiilkaaga yar qofka uu ahaa Samantar. walaal Samantar wuxuu ahaa markiisii hore runta markaan kuu sheego wiil aad iyo aad u wanaagsan. waxaan kusoo koriyey agoonnimaan kusoo koriyey 10 sanaan u dacwoonayay. Etoobiyay joogeen teenkii bay soo galeen kuleejkuu bilaabay markaa kuleejka markuu bilaabay footballkii buu bilaabay footballka markuu bilaabay isagoo footballkii ciyaaraya ayuu muxuu ahaayay haddana masaajidkana uu ku xiraa maadan buu ka ahaan jiray. nin sidaasuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa nin Soomaalinimadoo dhammi isugu mid tahay buu ahaa. runta markaan kuu sheego nin wallaahi markii dadku arko meel salaan uga soo jeensada oo uusan Soomaali kala aqoon oo abti iyo habar yar iyo eedo iyo hooyo dhaha oo madaxa ka dhukane 21 sano jir buu ahaa. hadda 21 sano galay. marka wiilka akhlaaqda leh buu ahaa. marka uu soo wacay Mondaydii wuxuu yiri hooyay dib baa dhacday. Mondaydii 23kii bisha markii dilku dhacay kadib December uu soo wacay. markaasaan waxaan ku ri maxaa dhacay wuxuu hooyay arintaasaa dhacday. arrintu ma dhacday haa waxaan ku ri waan aad baan u naxay. markuu yiri arintaasaa dhacday marka codkiisa sidoo ahaa hadalkiisa sidoo ahaa arinta dhacday oo kala hadlayna maxay ahayd. wallaahi codkiisu waxa weeye uu xumaa oo wuxuu ku xumaa kolley meel wuxuu ku jiray buuq ah. markaan runta kuu sheego marka wuxuu hooyay waxa dhacay wiil Soomaaliyeed ay Soomaali ma oran wuxuu yiri hooyo nin baa xalay soo handaday. markuu inta ii sheegay baan waxaan ku iri yuu ahaa Soomaali buu ahaa. waxaan ku iri Soomaali baa saas yeeshay haa saldhiga iskay baan ku iri inta socoto saldhiga iskay. marka dhibkan uu geystay miyuu kuu sheegay. haa dhibta waana geystay buu yiri. hadaladiisii maxaa ka mid ahaa xusuusta sidoo yiraahdo inta waxaan hayna ma oran kelmad kale iguma darin. nin baa mid ku laftay haa kelmad kale iguma darin. waxaan ku iri hadday saa tahay oo maanta aad Soomaali u soo dhigatay orod saldhiga iskay. wuu iga aamus. markuu iga aamusay hadal uu ka fiirinay ma Soomaali haa igama filayn. markaasaan waxaan ku iri daadan saldhiga iskay anaa saldhiga ku keenay. hooyo ma xiraysaa waa ku xirayaa baan. bas go'aan baan qaatay marka. waa soo tagay gabaraan saaxiibnaha soo raacnay. waxaan ku iri baabuurka markaan soo raacnay Faadmo amar baa dhacay. maxaa dhacay wiilkii Samantar ahaa ila soo hadlay saas u yiri waana xirayaa. waxay tiri
أرمى ويلك اللي هيست والله أما هلا هيست أما يلا هيسن بقول وجينا يا صليقة توس بنو جينا خير بدنا الله كسيه بيتر الكحي شغال السعودية شغال ما آذن alabti baan iska dhigay toos baan saldhiga u tagay saldhiga markaan u tagay xataa waan ku rafaadnay saddexdii bay nagu noqotay waana la hadli waayay fayl bay ahayd saan u sugeynay markii dambe ayaa waxaan aragnay meesha laga waco 115 dibadaan u baxnay baabuurkayga baan ka wacay aan ku jiray arrintan taa markaas inala soo kala carareen gudahayna galiyeen sidaasaan bixiyay booliska u yarteen booliska u yar xilligaas marka xagee u joogaa samantaraada u siiyayso meel u joogo maqan waa gart meel u joogo waa telefoon buu uga hadlay aniga weli sidii aniga waxa igu dambeysay samatar sabtidii baa igu dambeysay xataa axadii ma aan arag sidii baan u geeyay maxaa kugu kalifay bay dhaheen waxa igu kalifay baan ku yiri ma rabo ilmahaygu inuu dad dulmiyo isagana in la dulmiyo ma rabo waxaan ahay ciidamadii Soomaaliyeed baan ahay waxba iskama qarin dambiga waa laga carra islaam baan nahay islaantinimadu waxay faraysaa qofkii dhiig gala in dhiiggiisa la marsiiyo sidaasaan wiilkay ku dhiibaan markii dambe oo aanan ogeyn Soomaalinimo way taas ogow markii dambe xilli dambe ay tahay anagoo baabuurka ku jira oo u socona mana harsan ilaa la xiray aan u socono meeshaan deganaa ayaa waxa la yiri aamina dhashay wiilka aaminana waxay ahayd runtii gabdhaha Soomaaliyeed gabadha aan u jeclay oo walaashay ahayd oo igu qaali ahayd waxay igu noqotay murug labaad wallahi intii aan arkayay walaashay maan arag weligay dhibaato kama arag gabadha weligeed naag Soomaalinimada ku ordaysa bay ahayd nafteeda iyo maalkeeda u hordhay Soomaaliya aniguna sidoo kale aan ahaa sidaas aan wiilkayga ku dhiibay anagu ugu wareejiyay ciidamada waa gartay wiilkaaga ciidamada ku wareejisay booliisku way yimaadeen waa la xiray ninkii xabsiga ku jira wuxuu sugayaa maxkamad arrin aad iyo aad u dhib badan weeye ilma adigu aad dhashay waalidkuu dhiibo booliisku dhiibo markaad dib u eegtid waxa ugu weynaa go'aanka aad ku qaadatay inaad ninka booliisku dhiibto tiraahdo hal xiro dambigaas uu galay maxay ahayd baad isleedahay oo qalbigaaga ka soo go'ay qalbigayga waxa ka soo go'ay maanta hadduu wax sameeyo berrina waa samaynayaa tan ugu weyn weeye runtii markaan kuu sheego waa tan ugu weyn tan kale ilaahay rabbigiisaan tala saarsaday waxaan ku tala saarsaday haddii hooyo walbi saa samayn lahayd ama aabbo walbi saa samayn lahaa dhiig ma dhaceen qof lama dileen ilmaheenu waa seef garoobi lahayn inagu waa seef garoobi lahayn Soomaaliya ka dhacda 24 saac Soomaaliya ka dhacaysa qofkii qof dilay waa la sii deynaya berri buu shan kala dilaya marka waa xaq darro wadankeena ka jirta haddeenaan istaba qabanna waa soconaysaa marka waxaan go'aanka u gaaray inaan istaba qabanno oo hooyo kasta saa yeesho oo aabba kasta saa yeelo waa gartay waxaan ogahay hadda inaad u socotid aad aadaysid gurigii aamino markii ugu horeysay aad la kulmaysid maxaad ka rajaynaysaa inaad aamino kala kulanto aamino waxaan ka rajaynayaa wanaag iyo farxad iyo walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo saaxiibtinimo iyo waxaan isu ahayn sababtoo ah wiilku aamina kama dhiman waa naga wada dhintay janna firdawsi Allah geeyo aamina waa dhashay kana waa dhashay kana waa dhashay anna kana waa dhalay kana waa dhalay kaan xirena waa dhalay kan intana waa dhalay marka waxaan ka rajaynayaa inaan wanaag iyo walaalnimo iyo xubbi iyo sidaan wiilka iyaga aan ugu tacsiilayo wiilka iga dhintay ayaan ugu tagayaa caruurtii uu la dhashay iyo hooyadiis waxaan ogahay hadda inaad doonaysid inaad aadid gurigii aamina markii ugu horeysay maxaad ka rajaynaysaa aamina inaad kala kulantid maxaase kugu dhaliyay inaad intaan aas ku dhicin inaad u tagtid bilowgii horeba aad la kulanto oo la fariistay markii ugu horeysay waxa igu dhaliyay inaan la kulmo ana iga soo go'day waxay iga soo go'day wiilku waa naga wada dhintay sida inaan walaashay ugu tago oo aan kulanno ayaan u soo aaday oo ku soo aaday oo ku tala galay inaan aado raalli ma ka tahay inaan ka duubno oo ku raacno kulankiinaas hore aan soo duubno anagoo aan isleenahay si dadka Soomaaliyeed loo tuso in maaragtay aad isku timaadeen dhibaatada dhacdayna labadiina waa ka wada daqranaysaa ma noo ogolaanaysaa wadaadsan raalli baan ka waa hagaag ina keena
walaal aamino tacsiibaan kuugu imi inka wada dhintay wiilku janna firdawsi allaha geeyo ilaahay jannadii ha ka waraabiyo samir iyo iimaan allah ina ka siiyo socodkayga hadda soo gaaray inaan kuu imaado ka hor baan kuu iman lahaa marka walaalay waxaan qalbigan kusoo siin waayey sababtoo intaa ooyeysay anna waa ooyayay kan xiran iyo kan dhintana wayna ka dhintay kan xirana waa xiran yahay kan kalena waa ina ka dhintay janna firdawsi allaha geeyo adigana cafis aan kaa barinay walaalay gacaliso ilaa caruurta waa wada dhashay waa wada aasanaynaa garabkaagaan nahay gaashaankaagaan nahay waxba kaa hakran mayno walaal waa ku garab taaganahay waa ku dhinac taaganahay walaal aada umahadsan tahay waa ka ajiibi waa mataqaanaa ii sheeg anagoo dhan naga wada dhinto waa runtaa runtii aada iyo aada u faraxsana inaa ii imaadid waxaan rabnaa anagoo mataqaanaa gabdhaha soomaaliyeed oo ku dhibaataysan adduunyadoo dhan mataqaanaa dunida misay u dhan tahay hooyo soomaali meel walbay joogto mataqaanaa waa dhibaataysan tahay waa dareemi karaa maanta waxaan filaya xanuunka ani ahay adiga ku hay ka adiga ku hay inuu adiga kaaga inuu xanuun badan yahay walaali macaani ani arrintan mataqaanaa isheeg horta runtii aada ugu maasan tahay saa ugu dhiiratay oo mataqaanaa adiga hadda iisoo ijaabtay oodan filaynin talow maxaa kaaga imaan doona maxabadaa lagu haystaa mididii mataqaana lama laga aarsanayaa oo qalbisimada ay ugu imaadeen kaaga ajiibnay cafiskaana anaga mataqaanaa ma aha mid hadda oo gurigeyga muxuu ahaa sheekariya aan cafiska aniga kuwa cafinaya ma ahan anuu adisaba soo marayo oo soomaaliya markaan kasoo baxay maadaama aan ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo mataqaana human rightska ah waxaa nagu soo batay dhibaatooyinkan aniga wiilkayga xasan dhiiggiisi waxaan kusoo cafiyey anuu jooga dalkayga hooyo soomaaliya markaan etoobiya imidna waxoogaa shucuurteeda wixii mataqaana isbedeleen waa la socotaa mataqaana media waa aragtay anoo waalna iyo video iska duubay oo mataqaana adduunka oo dhan laga wada daawaday waa waalna because ma sugaynin mataqaana ay sheeg argagax ayay ugu noqotay runtii waa ka aad iyo aad adigana u mahadsantahay walaashay sida mataqaana ugu dhiiratay mataqaana inaa iisoo hor istaagtid ayaa anigana mataqaana ii sheeg wiilkayga samatar cafi iyo masaama wuxuu egyahay dhiiggiisii waan cafinay biidnillaahi kariim mataqaana gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan rabaa sida hooyo xaawo oo kale inay ugu dhiiradaan aysan mataqaana ilmahooda intay dambiye galaan aysan mataqaana dhoofinin aysan qarsanin dhibta waxay noogu yeeraanaysaa siday xaawo samaysay markay gabar walba hooyo walba soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku dhiirato in mataqaana maadaama uu ilmaheeda ay ogtahay inuu dambi galay ee cafis ay weydiso sidai xaawo oo kale because saana imaanaysaa aada umahadsan tahay xasan waa naga wada dhintay samatar waa naga wada xiran yahay waxaan rabnaa mataqaanaa in gabdhaha soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaanna inay nagu daydaan aadaan umahadsan tahay waa idiin duceynaya ilaahay rabbiga raxmaan maqshir iyo maqrib soomaalidu joogto dhan aayad inay u noqoto allah ka dhigo jidkaad marteen kuwii wada mara allah ka dhigo awlaada islaamka allah ku badbaadiyo ilaahay taasaan ka baryeena alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah ilaaha mahadaas iskaal ilaah isku keenay sharafta iyo wanaagga aad ku timado wiilkaada aad ku dhiibtay calool hooyo geesinimadaas ile maanta ma jirto laakiin allah ku siiyey adiga aaminana doorkeeda waa cayaartayoo cafisay fidisay say soomaali kaleeto ugu daydaan marka waxaan idiin rajaynaa ilaahay rabbigay raxmaan ha ka dhigo tii soomaali horseed ay u noqoto oo mindidaas ilaahay nooga dhigo rabbigay raxmaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allahuma salli calaa maxamed allahuma salli calaa maxamed adcuuka asmaa'uka alxusna wasifaatika alculyaa إذا سئلت أعطيت يا رب أنت الرحمن الرحيم إلهي ربك الرحمن أسماء الله سقاش إسقاك إلهي عن برينا ربك الرحمن كبرينا من لا كسفه هذه معنى هذا إلهي نصيه رحمن نوقص ودك تعرك ونحريص بدن أهو إلهي نوض في صومال جود ونسى قلنا الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد بما خلقتني ورزقتني وهديتني وعلمتني وانطقتني وفرجت عني لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافية اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء من بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا عبيدك اللهم لا مال لما عطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغالق الباري المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز
المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير العديم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المقصد المبدع المعد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد السمد الغادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الطاهر الباطل الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذا الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني مانع النار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا حنان يا منان برحمتك نستغيث يا مقيث بلاء الدنيا يا رب يا مقيث أقثنا بلاء الدنيا يا مقيث أقثنا بلاء الدنيا إلهي بقيني برعتها سمر يا رب غير رحمانها كاسنا مرتل جعليها الله كدغو كان حرانه إلهي قلبي ساسي قعمي سو قدومان إلهي قلبي ثبت قلوبه على الدين والتقوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين haatan waxaanu soo gaarnay gurigii uu ka geeriyooday marxuumka waxaana noo suurta gashay in aanu fursad u helno ilaahay fadligiis aamina maxamed mursal oo dhashay hooyadii dhashay ah marxuumka inaanu su-aalo weydiino aamina waa qof macruufa soomaalida dhan ay taqaano aan u baahnayn xaqiiqatan in soomaalida la baro dowladihii soomaaliya ayay shaqooyin kala duwan kasoo qabatay dowladda cabdullaahi yuusuf wasiir bay ka ahayd xildhibaan bay ka ahayd la taliya ra-iisul wasaare ayay soo noqotay haatanna waa la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed dhinaca xuquuqda dumarka iyo guud ahaan xuquuqul insaanka waxaana jecelnahay inaanu ka weydiino xaaladan foosha xun oo dhacday isay u dhacday iyo waxay ka og tahay iyo weliba waxa ku kalifay labadeedii wiilo ugu yaraa oo mataanaha mid ka mid ah in maaragtay tacsidiisii aanu u fadhino aamina walaalay marka hore waxaad iga guddoontaa inaan kaaga tacsiyo dhibaatada kugu dhacday qoyskaaga oo dhan ku dhacday annaga anoo ku hadlaya magaca tv-ga universal waa kaaga tacsiyana dhibaatada ninkaa yar dhalinyarada ku dhacday iyo dhibka idin soo wada gaaray bal marka hore waxaad iiga warantaa waa annaga aragnay videoyaal social mediaha ku jiray seed oga warheshay geerida xasan aada u mahadsanta cabdixaafid runtii universal t v aada iyo aadan kaaga mahad celinayaa waxaan aada iyo aada usoo dhaweynayaa mar walba dhibaatooyinka soomaaliya saa ula socota adiga gaar ahaan cabdixaafid aada ummadana aa u gaarsiisa mataqaanaa dad qaar waxaa jira taa codkooda aan la maqli karin codkooda inaad mataqaanaa aa gaarsiisid hadday noqon lahayd dowladda u k hadday noqon lahayd dowladda soomaaliya aadan kaaga mahad celinayaa inaa lilaahi inaa ileyhi raajicuun runtii 23 ayaa aloortii waxaa isoo wacday gabadhayda alxamdulilahi alshukrulilahi maalintaas maalin oo mataqaanaa iiga xun nolosha ima soo marin because habeennimadii o dhan wiilkayga ayaan raadinaya aniga waxaan ku raadinaya telefoon habeen walba ismaqli jirnay asagii mataankiisiba waa waayay alxamdulilah hataa walaalkiisaan wacay marka gabadhaa isoo wacday gabadhaydii markaasaa meel iigu dambeeyay aniga hataa waxaa ilooba hataa inuu wiilka ilaahay leeyahay aniga aan lahayn oo ilaahay isii haddana asaga waa ceshan kara hataa waa iloobay aada iyo aadaan u naxay waad la socotaan mataqaana social mediaha anoo video waalan oo mataqaanaa meeshaan joogi meel kale aan ka siino oo hataa luuqooyinka aan ku hadlayta aan kala ogeyn ayaan duubay because waa dareemi kartaa xanuunkii ay leeyihiin mataqaanaa aniga wuxuu ahaa xasan wuxuu ahaa mataan buu ahaa weliba waa yaraankeyga waay marka runtii markaan sidiian waxaan kaga soo ambabaxay magaalada muqdisho addis ababaan waxaan ku ahaa transit saacado markaan jooga addis ababa ayaa quluubteeda waxaa weli mataqaanadan aan soo aadin ayaa ilaahay subxaana qaadirka quluubteeda mataqaanaa wuxuu markiiba i tusay dhibaatooyinka haysta gabdhaha soomaaliyeed hadday north america joogi lahaayeen hadday yurubtan kale ay tahay hadduu ingiriis uu yahay marka maalin walba mataqaanaa oohinta mataqaanaa ii sheeg guryaha hooyinka soomaaliyeed oo maalin walba ilmadoodii mataqaanaa da-ayso oona caruurtoodii ka warqabin oo caruurtii aan na maqlayn waxaa go-aansaday maadaama wax badan aan kasoo shaqeeya mataqaanaa sidii soomaaliya mataqaanaa ilmaha soomaaliyeed ama soomaaliya oo dhan base cagteeda ugu istaagi laheyd waxaan go-aansaday inaan muujiyo waxyaabihii aan ku dhaqmi jirnay oo ahayd in hooyo wiilkeedii dambi galay wax dilay inay mataqaanaa wiilkeyga muxuu ahay shay iska dhoofa ee dhoofiso in hooyo wiilkeedii ogtahay inuu xabsi ku jiro ay dhahda jaamacad china u diray maxaa lagu bedeli karaa cabdiyo marka runtii waxaan go-aansaday inaan cafis aan fidiyo
أنا أنتي قبل أركيس أبات الحمد لله الشكر لله ولا شيء حاوة أو متقالة إيش حاوة تاكو رنتي قبل عال أو سومالي ذا متقالة سفعان وتقالو أيا متقالة إيه مادي أنه رابو أنقى أصلي إلى عفيه marka runtii sidaas ayaa mataqaanaa ii sheegaya yaa u go'aansaday waxa koos gareeyay dhan mataqaanaa ii sheego dhibaatadan oo haddaan isleeyahay leeyahay way nagu soo naqnaqatayna waa dareemaysaa mataqaanaa waddankan safaarad ma lahan 1 milyan waa ku joognaa ilaahay idinkiisa mataqaanaa waxaan rabaa xasan wuxuu ahaa nin baari iyo ahaa xasan wuxuu ahaa nin si fiican wax u bartay xasan wuxuu ahaa nin iskuul ku fiican oo ahaa xasan wuxuu hiigsanayay inuu waddankiisa Soomaaliyeed inuu mataqaanaa ii sheegay wax ka qabto oo waliba wuxuu rabay xasan inuu noqdo police officer ayuu rabay inuu noqdo hatta wuxuu la kulmay madaxweynihii Soomaaliya ayuu la kulmay wuxuu la kulmay ra'iisul wasaarihi ayuu la kulmay ma ahayn nin raba inuu mataqaanaa waddan ay halkaan mataqaanaa ama drug ku iibiyo ama muxuu ahaa ii sheeg ama meelaha qaarkood ama istaaga ama midiya qaata ma ahayn xasan سأقول سعود حسن هتا مركي متقنا شركة ولا عاي ويلكي وفرمرنا مديم وسودن من مغلي لكن إلهي سببتي سي متقنا ويلكي يركا أو لالكي ساها وإلهي كل سبب أيام مدد وته لكن حسن وحوها من طريق فعلا أو متقنا لقول ضيين كره ورنتي متقنا دومين وحمر قصص مستي متقنا إيش باربير أو ليرة هذا أفرو سكرة ذي وحمر وقصة فري wuxuu u soo socday in wuxuu rabay inuu waddankiisa mataqaanaa wax ka dhiso Soomaaliya ayuu rabay hatta even mataqaanaa waxay ahayd inuu sanadkan university inuu aaday ahayd wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan jaamacadan ka dhigto mataqaanaa Soomaaliya marka nin Soomaalinimada ay ku badan tahay anigana aan haddeer mataqaanaa caalamka iyo intii maqlaysa oo u sheegay xasan inuu yahay saqiir yar oo dhintay oo mataqaanaa baari ayuu yahaa walaalihiis mataqaanaa aaday u jeclaayeen aad uu loo soo dhaweynay إلهي هدر قبل الله العبد جابع إنتي كما يسن لماني مركا الحمد لله الشكر لله وحان قوانسني وحان قادني مركا أردباتوين كو مد الصومالي إيه ستو مركا أرد متغانا هويوين كالصومالي متغانا سيئودن دريسيهين مركا أردني قرب والبو متغانا أوهين أي متغانا لقوة أويناي سيدي أيان ديجي أكو عفياني وحان رجينا يانا متغانا إذا كعد سرايا إنا تقرب إيقاشان يقول لك قتال إنا وحكب دلو dhibaatooyin ka London lagu soo laalaabtay dhibaatooyinka North America ka jiro dhibaatooyinka mataqaana Soomaali meel walba ay joogto oo ilmahan mataqaana mid ku taag ah waad arkaysaa cabdiyo mataqaana caruurtan waxay wataan saaf ay wataan waxaas anaga dhaqan uma lahaan jir anaga miyuuna ka fikirin marka waxaan go'aansaday ma ahan mataqaana ii sheegay cunugeyga wiliba aad uu kulaa aniga because baarigaygu ahaa waxa dhiigay wiilkay uu afiyay oo haddana aan raba ilaa uu afiyo ilaa meesha u dambeys aan la soo istaaga cafiskiisii ayna iga ahayn mataqaana mid ay idaacada oo kaliya aan u sheegay midaan mataqaana ii sheeg dhalantada aysan iga ahayn oo iga tahay si diib la iga tahay waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay dhiigooda ku badbaadiyo waxaan ilaahay subxaanahu qaadirka ka baryayaa in ay noqoto arinta mataqaana dhiiga wiilkayga xasan mataqaana waa reer Sheekh Suufi waa على صعد أنا كونفرق البيضان كائن حسن الشيخ سوفوا أنا قصير بديق ما بقى هذا النبض وحنقول له فاتح يعني نقول فاتحين قاعدنا لكن وجد كي يقولوا حيتا أنا إن متقانا صومالي دان أو أنا متقانا أنسد وين إن متقانا إن قط مدة متقانا قبلها الصوماليات أي كل ديدان وحقوا عن ستين هذا عفسد هو يدي ويلكي وحدري إني أيد ويلكي بوليس وديبتو عفس كان قيب أنت لا بكتح والله هو دريم كرتا رنتي متقانا أنا وحيابها سيدير جري كم تايحاو because حاو متقانا وحي كديرتي متقانا وحن قبلها الصومالي أيسن سمين ولي قد حاو وحي كديرتي متقانا إيش أنا عاد وحي إنه مركي عروتين وحي سميان أما متقانا قف يسود ديران أما متقانا بحكمة أولية هاي إنه علمه ودنك الغسارة أي صومال بدنا تاسع عاد وأهيد بركنتي حاو إلهي خير هسيو وحي مضنطها إن القضيضة وحانا فيلا قبلها الصوماليات meel walba caalamka ay ka joogan in ay mataqaana arintan ay tusaale u noqoto in lagu daydo marka aan ku leeyahay mataqaana waxaan rabaa inaan ka yarbaxo hooyo mataqaana ilmaheedii oo drugs qaadanayo waxa awood mataqaana u yeelatay in ay TV-ga soo fariisato oo ay hadasho oo ilaa mataqaana wiilkay daroow qaadanay daroogada ala soo iibi alxamdulillah alshukr hadda mataqaana way fiican yahay laakiin ka war mataqaana maajiga ay cabdiyo inay hooyo mataqaana lacag intay bixiso wiilkeedii oo mataqaana drug waa kana hooyo cab heerkaas gabdhaha Soomaaliyeed marayaan marka waa iscafinayna
باذن الله الكريم متقانا هوشان waxaan rabaa inay si balaarato waxaan ka codsanayaa mataaqana gabdhaha daafaha caalamka ku nool especially North America kuwa islaam jabka iska soo duubaya iyagoo walaalahooda dilayaan inay ka waantowaan waxaan filayaa mataaqana gabdhaha Soomaaliyeed kama fiicni mataaqana ku malaayina iga sii fiican laakiin waxaan filayaa mataaqana in ay ogaadaan ay arkaan ma arkaysa in maanta dhiigayga mataaqana wiilkay sida loo dilay adduunka dhan bay mataaqana daasan tahay waxa awoodaas waxa Ilaahay subxaanahu qaadirka kowisi waxaan ku dhiirida mataaqana si aan u badbaadiyo ciyaalka Soomaaliyeed iyo ari aan dhalay iyo ayadu ahay iyo Soomaaliyo dhanba ayaan ku cafiyay dhiigga xasan cafiskan maxaad leedahay ummadda Soomaaliyeed way ka baranaysaa ama uu ka turjumayaa cafiskan waa 10 waa cafiskan waxa waa dugsi wax laga barto waa because dhibta way nagu soo noqotay waad arkaysaa mataaqana ani mar raba inaan arrimaha aan galo mataaqana booliiska Ingiriiska laakiin halkaan mataaqana wadankan waxa u soo doonanay nabadgeli ayaa u soo doonanay wadankan waxa u soo cararnay wadankan waxay ahayd xabad iyo qax iyo dhibaato iyo gaajo iyo orod wallahi situation markaan videoga qaar markaan fiirsado maanta waxa isla mataaqana UK iyo muxuu ahaa isheeg ee Soomaaliya meel laba tahayba because Soomaali problem waa ka jira shabaab waa ka jira qarax waa ku jira laakiin dhalinyaro mataaqana seef madiig wato oo dariiqas barays malaha runtii ba aqaan waxba iska bedelay ee mataaqana wadanka Ingiriiska ah Soomaaliya anaga maanta dhaqaalaha dawladda Ingiriiska ayaa ku tiirsanahay waliba arrimaha booliiska ee naga caawiyaan halkaan ma arkaysa xaaladda waxay maraysaa in Central London mataaqana harkii mataaqana wili ilmiyaro gaan wata iyo ilmiyaro torrey wata inay isku bursadaan marka anu hash maankayga gaday masaar bay laqada iga taagan tahay waa yaabana dawladda Ingiriiska anaga waxaan ku sigeynaa xaaladda meesha ay marayso marka runtii mataaqana mar raba inaan ku sii fogaado wax badan oo mataaqana aan ku soo koobi karin in University TV Cabdixaafid intay soo fariistaan aan ka hadlo mataaqana arrimaha oo maanta yaal UK ama Soomaaliya oo haystaba halkan kuma soo koobi karno waxaan rabaa marka aniga barnaamijka inaan weynino waxaan rabaa barnaamijkan midda Bristol joogto iyo midda Manchester joogto iyo UK mataaqana si ugu dhantahay inay nagala soo qayb galaan waliba mataaqana isheeg waxaan rabnaa muxuu ahaa isheeg maayarka inuu nagala soo qayb galo maayarka mataaqana waxaan rabaa barnaamijka inuu kaga faa'iideysto oo ay soo gaarto fariintiisii dhaqsiin rabaa inuu ii arko waxaan rajaynayaa mataaqana codsigeena wuxuu yahay inuu nagala soo qayb galo xafladaas weyn halkaas mataaqana arna inaan mataaqana dhameystirkii ugu weynaa odayaasheena mataaqana ka soo qayb gali doonaan culimo diinka mataaqana ugu baaqaya hooyooyinka ugu baaqaya waxaan kaloo rabaa inaan ka codsado hooyo walbo mataaqana sidoo oo kale dhibano ah oo wiilkeedii mataaqana ay sugaysay mataaqana inay anfac ay ka hesho inay adeegsato inay ubadkiisa aragto aqara loo diray inay sawiradiisa ay la imaadaan habeenkaas nagala soo qayb gala barnaamijkaas waxaan rabaa marka fursadan oo University TV maanta isiisay ama caawa isiisay inaan kaga faa'iideysto inaan la hadlo dawladeeda mataaqana ama xukuumadeeda aniga aan ka tirsanahay runtii mataaqana dhibaatooyinkan waa nagu soo laalaabteen halkaan ma wuxuu ahaa isheeg waxaan rabaa inaan ka codsado madaxweyne Farmaajo iyo mataaqana ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda iyo labada aqal waxaan rabaa inaan ka codsado inay focuska aysan mataaqana isheeg dadkan oo diaspora ku nool oo especially inay focuska ay siiyaan North America iyo mataaqana UK laakiin ma aha mataaqana in maanta oo dhan mataaqana Cali Gardaran iyo Xuseen noocaas inay ku mashquulaan ma aha waa inay focuskooda siiyaan halkan waxaa degan 1 milyan waa ku dhowlaa Soomaali ah marka ma aqaan meel aan u cararno malihin safaarad ma haysano marka arrimahaas horena waa u sheegay waxaan ka codsanayaa mataaqana maadaama dawladeena ay hana qaaday oo dawladeena iyo xukuumadeena hadda si fiican u shaqeynayaan bal focuskooda inay soo siiyaan mataaqana ii sheegay waxyaabaha ka jira halkan oo safaaradaha mataaqana sida safiirka Ingiriiska ah safiirka Norwich-ka ah safaaradaha halkaas lagala xisaabtamo ay la socdaan mataaqana dadkooda oo muxuu ahaa jaaliyadahooda waxa ay ku nool yihiin mataaqana dad adagna ay u soo magacaawdaan ka codsanaya mataaqana dawladda federaalka oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafidullaahi madaxweynaha uu ka yahay waa hagaag aamino waxaan ogahay inaad ku jirtaan qabanqaabadii aaska marxuumka Allah u naxariistay goormo aas ku dhacaya xageesa janaasada lagu tukanaya inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun runtii aask wuxuu dhacayaa maalinta 12 bisha Oktoobar waxayna masaajidka mataaqana Edmonton ayaa janaasada la keenayaa kooda duhurnimo
marka dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan UK waxaan rabaa inay nagala soo qayb galaan maalinta sabtiga ayaan ka dhignay maadaama mataqaana maanta ayaana la siiyey meydkii waa iska ogtahay halkaan mataqaana xoogaa markii oo saas oo kale dhibaatadaas oo kale ay dhacdo muddo ayay haystaan annagoo marka aan rabno inaan u faa'iideyno maadaama dad badan aan kuleeyahay halkaan iyo macal communitygii waxaan uga dhignay weekendiga inay nagala soo qayb galaan community-yaashoo dhan oo adiga ugu horreysa cabdixaafid ah aamino gabagabadii ayaan ku jirnaa barnaamijka waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo waxaan ogahay aaska kadib inaad qaban qaabanaysaan kulan weyn oo jaaliyaddu ay darawal ka tahay oo wadatashi ah sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan foosha xuna da'yarta soomaaliyeed ay kala kulmayaan wadooyinka magaalada London iyo sidii wax looga baran lahaa cafiskan adigu aad walaasha u fidisay iyo wiilkeena wax dilay ina ayadu ku timid oo laftigeeduna wiilkeena booliisku dhibtay maxaad is leedahay barnaamijkaas uu daaran yahay nuxurkiisa runtii barnaamijka wuxuu xambaarsan yahay nabadgelyo ayuu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay mataqaana ku dayasho xambaarsan yahay wuxuu dhiirigelinayaa mataqaana hooyooyinka Soomaaliyeed ayuu dhiirigelinayaa ilmuhu waxaan filayaa mataqaana barnaamijkaas kulankaas maadaama ay isku imaanayaan jaaliyadaha booliiska maayirka waxaan rabnaa mataqaana ii sheeg inay wax isbedela inaan muujino waxaan kaloo rabaa inaan baaq la yaqaano baaq hooyanimo oo raba inaan tuso dhalinyarada Soomaaliyeed waad arkaysaa inta dhiiggeena aad daadiseen ayaan haddana cafisa idinku dareynaa marka hooyo macaan waxaan kaa codsanayaa hooyadaana ha dilin adigana xabsi madow ha aadin anigana ilin ha iga keenin maanta waxaan ogahay mataqaana xanuunka ani ahee iyo kan xaaw inuu kan xaaw badan yahay ani ilaahay subxaana qaadirka waa i dhaafiyey xasan sabtiga ayaa mataqaana la aasaya laakiin xaaw mataqaana kama tirmayso marka hooyo macaan naga dhiga mindiyaha ilaahay usoo laabta wadankiina mataqaana waa hirgelay Soomaali waa istaagtay shidaalkiyaa la helay yaa mataqaana batroolkiyaa la helay war waxaasoo dhan yaa cunay war heshiya war iska iloowa dadkii waxaan sameyn jiray oo raggii waxaan sameyn jiray wadankan waa ka haajireen foorxumay kugu tahay walaalka mataqaana mid ku taag maanta group idinkoo wadan islaamid aad joogtaan wadan aan dhaqankiisa annaga waxba aan ka ogeyn hooyada maskiinta ah maalin walba ooynaysa war u daryeelo walaalka hadduu ku dilayna cafi anigana waxaa ugu dhiirida mataqaana maanta xanuunka ahay waa dareemi kartaa laakiin waxaan rabaa inaan ku badbaadiyo malaayiinka mataqaana midiyaha isku haystaan Soomaaliyeed meel walba ay joogaan war heedha adigana xabsiga ha aadin anigana ha iga ilmaysinne naga dhiga midiyaha wabillahi tawfiiq janaasada waxaa lagu tukanayaa maalinta sabtida taariikhda ay tahay 12 bisha 10aad ee 2019 oo ah sabtida lagu soo beegan haddii ilaahay uu yiraahdo waxaana lagu tukanayaa janaasada masaajidka weyn ee Edmonton Angel ee Soomaalidu ay aad u taqaano isla mar ahaantaana waxaa lagu aasayaa marxuumka Allah u naxariisto haddii Alla uu yiraahdo Peace Garden oo si fiican u taqaanaan oo ku yaala bariga magaalada London waxaan jeclahay inuu mahad celiyo barnaamijkan duubay edit gareeyay qurxiyay isku hagaajiyay waqti badan geliyay walaalkay wariye Cabdiraxmaan Soomaali sidoo kale waxaan jeclahay inuu mahad celiyo liibaan jaamac oo si fiican u taqaanaan oo asagoo laftigiisu wadankan safar gaaban ku jooga walaalka marxuumka dhintayna ah barnaamijkan waxaa idin socodsiinaya anigoo Cabdixafiin Maxamuud Jaamac inta ay jirto dad Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay iscafiyaan dhibaatada kala gaartay haddii ahaan lahayd tan oo kale iyo tii dalkii ka jirtay ay jiraan dad iscafinaya oo wanaag doonaya Rwanda anaga ka fiicnaan doona dadkani